Real Madrid waxay weerar ku tahay xidiga afrayaasha waa Liverpool, Arsenal iyo Man City. Kooxda Liga waa European Champions ayaa rabtay in si fiican ay u dhisto iskuadkeeda. Inkastoo siix weyn oo muhiim ah ay sameeyeen suuqii xagaaga kadib markii ay la wareegeen Kylian Mbappe oo ay ka soo qaateen Paris Saint-Germain. Xidiga ku guuleystay ama haysta abaalmarinta koobka adduunka ee Mbappe waxa uu Real ku dhaxlaan karaa saameyn ballaaran. Laakiin The Independent ayaa ku hormaysay Real Madrid ay bartilmaameed ka dhiganayso nambarka labaad ee Liverpool Alexander Arnold, Man City qadkeeda dhexe Rodri iyo mid ka mid ah William Saliba iyo Cristiano Romero oo ka tirsan kooxaha Tottenham iyo Arsenal. Laakiin bartilmaameedka ugu sareeya waa Rodri oo mid ka mid ah xidigaha caalamka ugu saameynta badan waqti xaadirkan kadib markii Man City uu ka caawiyay inay ku guuleystaan horyaalkii afraad oo xiriir ah, Champions League-na meel fiican uu gaarsiiyay. Real ayaa rabta in Spain ay ku soo celiso xidigan oo ka dhaqaaqay Atletico 2022. 27 jirkan sidoo kale waa liiska sharaxan ee abaalmarinta Ballon d'Or. In uu dib ugu noqdo Spain waa macquul kadib markii cayaaraha Euro-ga uu la qaaday xulkiisa. Geesta kale, Man City waxay rabtaa in ciyaartooyga Isbaanishka ay ka siixdaan qandaraas waqti dheer ah. Dhinaca kale tan bartilmaameedka kale ee Real waa Arnold oo ka tirsan xulka qaranka Ingiriiska iyo kooxda Liverpool. Waxaa macquul ah in markii ugu horeysay uu ka dhaqaaqo Anfield. Alexander Arnold ma jirto qandaraas cusboonaysiin ku aadan in Real uu sii joogi doono xilli ciyaareedka soo aadan. Bilooyin ayaa ka dhiman in kooxda uu kaga tago qaabbeexa xurta ah. Waa 25 jir. Kooxda saameyn weyn ku lahaa intii uu joogo club. Ugu dambeynna لاعبينta kale ugu dambeeyay ee Real ay rabto waa William Saliba oo ka tirsan kooxda Arsenal. Laacibka Faransiiska ayaa ka mid ah xidigaha ugu fiican ee Gunners. Haddii ay waayaan William Salibana waxay ku bedelan karaan laacibka Argentina iyo kooxda Tottenham ee Cristiano Romero.